sida caadiga ah marka jaamacadaha laga qalin jabiyo cid kastaaba waxay aadaysaa suuqa shaqada halkaasna ciddii dadaal badan mooyee cid kale lagama yaqaano oo nasiibku ma laha markasta qofka si wanaagsan u qalin jabiyaa tayadiisuna fiican tahay ayaa ah qofka loo ballan qaadi karo inuu ku guulaysanayo suuqa shaqada sidaa darteed nolosha jaamacaddu ma aha oo keliya muqarar la qaadanayo laakiin waa nolol dhammaystiran kuna diyaarinayso waxaad noqon doonto mustaqbalkaaga dambe waxaa lagama maarmaan ah inaad la timaado hadaf cad oo noloshaada yool ay tiigsato u noqda haddii aadan hadaf nololeed lahayn ugu dambeyn meel cidla ah ayaad ku lumaysaa waxaan maanta halkan idinkugu soo gudbinayaa talooyin uusan ka maarmin ardayga horu socodka ah ee ku jira waxbarashada heerkeeda jaamacadeed marka hore isku day inaad fahamto waxa gudaha jaamacadda ka socda ogow jaamacaddu waxay kaga duwan tahay dugsigii sare manhaj gaar ah ma laha oo hay'adda waxbarashada jaamacadda ayaa go'aamisa waxa la dhigayo waxaana muhiim ah wax akhrinta iyo cilmi baarista aad samayso inta suurtagalka ah waa inaad raadiso fursado aad ku horumarinayso naftaada meelaha aad ku liidatana aad isaga hagaajinayso waxaad ogaataa marka aad jaamacadda dhammayso fursad aad naftaada ku horumariso way kugu adkaanaysaa inta aad ugu guda jirto nolosha jaamacadda waa inaad laba arrimood si wanaagsan isaga dhistaa waa midda koowaad luuqadda ingiliishka oo noqotay luuqadda cilmiga iyo kombiyuutarka oo noqday lagama maarmaanka noloshan casriga ah halka aad naftaada ku horumarin karto gudaha jaamacadda waa inaad ka qayb gasho sida khudbadaha guud tababarada shirkadaha qaar ay siiyaan ardayda jaamacadaha iyo fursad kasta oo aqoon kororsi ah oo suurtagal ka ah gudaha jaamacadda shahaadada jaamacadda oo keliya ma aha baasaboorka shaqada lagu helo waxaa muhiim ah inaad naftaada si joogto ah u horumariso aadna leedahay xirfado wanaagsan haddii aad doonayso inaad meel wanaagsan gaarto waxaa muhiim ah inaad si gaar u eegto hiwaayado cusub iyo mihnado hor leh oo ka baxsan takhasuskaaga inta aad kartana hibooyinka aad leedahay horumarin ku samee qof kastaaba wuxuu leeyahay hibooyin uu si gaara ugu fiican yahay dadka kalena uu kaga sareeyo sidaa darteed waa inaad si gaara u daryeesho hibadaada si mustaqbal wanaagsan aad naftaada ugu samayso ugu dambeyn dunida aan ku nool nahay qof kastaaba wuxuu haystaa fursad wixii aad shalay naftaada u abuurtay ayaad maanta miraheeda xumaan iyo samaanba u guraysaa